kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo sharafta mudan oo caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo xilli walba idin tahayba waqtiga haydin wacnaado waayahan haydin samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin leh mar kale iyo muuqaal hor leh aad ugu maasantiin sida qiimaha iyo tixgelinta mudan ee aad inoo la socotaan ama aad channelka uga warhaysan inta dib inooga soo biirtayna aad bay u maadsan yihiin inta hore inoo la joogtay ee kamida fadhiyo weynta sariicaad dadka ku dhow lahaanshiyaha channelkan aad bay u maadsan yihiin inta soo socotana wadada ayaa idin soo fureenay soo dhawaada maanta muuqaal ayaa inoo wada muuqaalkaasi waa Sumaya Xaajiyada Liicato waa wada naqaana dhamaanteen barasho ugu ma baahnin Sumaya maanta waa dacwad waxa ay ka dacwoonaysaa dad iyada dacwadka ah وسؤال يا بدن أما هذا يا بدن أو لا يا بدون تمرك عاد مقشة لكن واحد رجينيا مركز مغال كلام يستو أما عداوته مغال كأن كعجة هنا التوسي أي تبسيجة مركز يتفهم دونتا واحد ورجيدنا لكن واحد دنيا إن أن كإلاليو أما بقى كإلاليو مركزي ترحان إنه ده حاجة له هذا الكيني سئو عديفت أما دباتو وابورو لكن ده أيام مركزي دونيو سوتها أسوقاتنا أي تحي inay doonayaan inay balaayo ka dhaxkiciyaan Rayaan Bajaaj oo taqaanaan iyo Sumaya horta markii ugu horeysa wax yar ayaan idinka dabageenayaa muuqaalka si oo idinku bidhaamo markii aad daawanaysaan Rayaan Bajaaj waxa ay samaysaa waxyaabo la isku dardaro oo yaani dawooyin ah oo ay dadka siiso dadka haaraha leh oo kale iyo dadka runtii waxyaabaha kaleete dadka wajiga inay ka naaxaan rabaan waxyaabahaas kulli aanu ma garanayo laakiin dadka qaar ayaa waxa ay yiraahdeen Sumayo adiga ayaa waxa nagu yiri Rayaan Bajaaj alaabta ay hayso waxa lagu nabaan lagu naaxaa waa iibsanay kareemka waxbana kameynaan dareemin maxad beenta noogu sheegtay ay leedahay laakiin waxa ay markaas dacwad ka tahay oo ay ka noqon doontaa dad iyadana xoogaa yar ku yara dhagay oo qabsaday marka ugu horeyso muuqaalka ayaan ku soo wada nasan doonaa aan isku soo laabanay baldaawasho wacan bishii hore Ramadaanka saana leeyahay bishaana saana leeyahay idinka dhan waxa isku haysatiin Sumaya Rayaan wax siisay iyo Sumaya gabadhan kala wax siisay aniga horta gaan Rayaan baan aqaana Rayaan Bajaaj baan aqaana gabadhan kale Abaya Ali maxay hebel dhaho aniga kareemkaas anaga wajiga ku gadanay waxna nooma shaqeynay maxaa been noogu sheegtay aniga meelan ku hadlaayo ku dhahayo gabadhaas maxay ahayd kareemkeeda isticmaalay ma jiro maya hal maalin ba Instagram-kan ka arkay kabacdina inda adayg iyada ugu soo gashan arko dhahaysa xitaa waad dafiraysaa oo dhahay maanon aqoon ku leen badi dhahaysa xitaa waad dafiraysaa ina u saaray waxaan dhahay kulay waxay ka goosanaysaa ka goostee bariiskida ka ciideeyeen laakiin runta waxay tahay aniga waligay Allah kareemilada ma isticmaalin mana isku dayin wajigayna ma taabsiinin mana aqaano so hadii oo adiga like choice ahaantaada u samaysanaysid waa choice adiga ku gaar sida aad soo wada aragteen waa qof xil inaga mudan runtii waxa ay tiri dadka qaar waxa ay yaani Ramadaanka ka horeysana sidaas oo kale ayaa leeyahay dhagnaa ay leedahay Ramadaantanina sida oo kale ayaa ugu dhagantiin marka waxa ay ka hadlayso ay ka dacwoonayso ma aan ajaanib American ugu horeeyo ee waa Soomaali walaalaheed ah oo maanta jinsi iyo dhiig iyo dhamaanba ay wadaagaan laakiin marka loo eego gabadhan walaasheen ah waxa ay inaga mudan tahay xitaa hadii hadalkaasi uu sii kululaado ama ay yaani sii kululaado warka uu sii kululaado waxa dhici karta xitaa iyadii gabadha walaasheeda inay isqabsadaan maanta dagaal waynu ka daalnay dhibaato waynu ka daalnay qabiileys waynu ka daalnay in badan oo dhibaato nagu filan faraq ay noogu jirtaa waxa loo baahan yahay oo kaliya waa in aan maanta dadka is haysta ee social media baabi'iyay runtii in aan yaani ka joojino sida aan uga joojin karno laakiin macnaha guud oo aan leenahay ma ahayn in aan dagaalo hor leh abuurno ama dad hor leh oo walaalo ah oo isjecel aan wax ka dhax abuurno Rayaan Bajaaj waxa ay iyada iibsato iyada ayaa iskad u iibsato inta ay anfacdana waxa rajeenayaa inay ka iibsan doonaan inta kaleetana oo yaani aanan waxba anficina way iska deyn karaan iyagoo aan dhibaato kale iyo wax kale aanan abuurin ama ficilo kale aanan sameeynin si loogu kala fogaado sidaanu ka wada warhayno Sumayo waxa ay soo martay xaalad aad u adag marxalad adagna waa ay soo martay walaasheen alxamdulillah ugu dambeyntii ilaahay wuu ka soo samatay bixiyay oo maanta waa ay caafimaad qabtaa annagoo mar badan uga duceynay channelka dhexdiisa Soomaali dhanna ay u wada duceysay aad baan ugu mahadcelinaynaa waliba dadka aad ugu xiran channelka waa ay u duceeyeen walaasheen Sumaya xaajigeedu waa uu ka maqan yahay waa qof iska keli ah maanta waa iska keli markaan ku leeyahay waa iska qof
xaaladaysan oo waxa ay u baahan tahay maanta oo kale in la garab istaago oo loo gurmado oo yacni loo caawiyo maaha maalintii lagu furaya dagaalka maalintii lagu furaya buuqa sababtoo ay waxa ay adduunyada ugu jeclayd oo ay doonaysay oo qof walba oo bil'aadama oo ku hamiyo oo ahayd awlaad ayuu rabbigeed ka jeclaystay marka in la garab taagnaada ay ku qurux badnayd in aan balay lagu furin mid kale ta su'aal baan wataaye dadka maanta dhahayo waxaan iibsanay dawo si aan ugu naxno miyaysan ahayn duni wareersan dadka qaarna waxa ay ka cararayaan oo ay baxsad ka yihiin si ay cayilkooda u yareyn lahaayeen adduunyada waa la isweydaarsan yahay qof walbana waxa uu sameyn karaa tusaale yarna waa idinsiinaya in badan waxaan aragnaa social media in lagu xayeysiiyo sida qofka yacni miisaan uu iskaga ridi lahaa ama miisaan u ziyaadsan lahaa qofkan adiga ku sharaxaya ama wax ku sheegayo xaguu ka keenay isaga wax uu tijaabiyay ayay kaga soo baxday hadaba jismiga bil'aadamka isku wada mid ma yihiin oo ninkaasi wixii hilibka ka riday ama miisaanka ku kordhiyay adigu ma laga yaabaa in miisaanka ku kordhiyaan ama ay miisaanka ridaan jawaabtu waa may sida ay jirkeen u wada shaqeeyo isku mid ma noqon karto qof walba waxba ka rido qof walbana waxba ku kordhiyo marka adigu markii aad raadinaysid inaad wajiga ka naxdid waliba aad ku raadinaysid in aad macnihi dawo intaad iibsatid wajiga aad marisid wixii kaaga iman doonaan aadan ogeyn wixii kaaga soo bixi doonaan aadan ogeyn miyaysan ahayn adigoo naftaada qatar ku tuuray haddaba haddii ay dhacday inaad qatartaasi ku tuurtay way aad dib ugu celinaysaa qof kale oo aan runtii sida aan ka wada daawanaynin fiidiyoga أنا شقة كل هين وايا أدب وقول علينا سا ما حد سكدوني سا مركزي إن أو أي كوي جوابته أو ماشى سي أي بلايو يدباته أي كتير ماذا يد أديكوا فرح سا ماي هكو فرحين وحأتكو فرح ذا مسألة حدا ضدك يدك يعني ولا لا هذان أو يزعلان أو يزقرب يستأكسنادان أو أي إسكود دم قدان سيدا أديكوا جعلان لهيدين لو دم قدان مالين تدعو ليش كسارين هاي أديكوا دم قدتك adigu ma jeclid in balaayo ku qabsato ma jeclid in dhibaato aad la kulanto ma jeclid in aad cadow yeelatid ma jeclid in aad social media lagu hadalhayo ma jeclid in social media lagu weeraro sidaas oo kale ha jeclaanin inaad adiguna qof social media aad ku weerarto sida aad naftaada uga jeclayn sababtoo oo ah haddii aad taas aad sameyn weydid waxa aad dhinac maraysaa xadiiskii rasuulka oo ahaa wixii aad naftiina la jeceshiin walaalihiin la jeclaada mar walba waxaa rajaynayaa marka in aan noqono dad samaha ku astaysan oo maanta hadii la isweydiiyo la yiraahdo qofka waa qofsan qofkan waa qof xun qofka samaanta ku astaysan inaan noqoto ayaan jeclaan lahaa walow ay dadka intayna badan hadii aad qof ku tiraado waad xun tahay oo dagaal kula soo istaagayo isagoo aanan dabeecad ahaan qurux badnayn ama dabeecadiisa aysan wanaagsanayn waxa mar walba aan rajaynayaa oo Ilaahay aan ka bariyaa in Soomaali oo dhan qalbiyadooda Ilaahay isku soo duwo oo dadka Ilaahay oo tusiyo waxa ay isku yihiin ma arkaan waxa ay isku yihiin waxa Ilaahay ka rajaynaynaa war Ramadaan tobankii hore waan soo dhamaysanay tobankii dhexe ayaan ku jirnaa biidnillaahi alkariim aamiinta iyo qabta inta isfahamsana Allah isku sii wado inta aan isfahamsanayna Allah isfahamsiyo oo qalbiyadeena Ilaahay isku soo duwo oo Ilaahay is jeclaysiyo biidnillaahi alkariim aadna wad umaasantiin dhamaantiinba caalamka meel walba aad ka joogtaan fiidiyogan la gareeyay sina share gareeya oo asxaab badan la wadaaga intaan muuqaalkan mid xiga aan ku kulmi doono waxaan dhamaantiinba oo isku duuban aan idin kaga sii tagayaa Ramadaan kariim iyo isku soo noqod wanaagsan